arrinta koowaad waxa weeye jiradan faafaysa ee la leeyahay dalka China ka bilaamatay waan ku celinayaa ee la leeyahay dalka China ka bilaamatay corona viruskaas waxa aan ka hadlayno waxa weeye jiradaas dalkeena Djibouti dalkeena Soomaaliya sidoo ku yahay amba sidee looga badbaadin karaya su'aashaas inaan ka jawaabaan rabaa su'aasha ka hor waxaan jeclahay inaan ka hadlo laba arrimood oo aniga iga argagixisay weeyaan arrinta koobaad waxa weeye wadaadadu adduunka muslimka hadday carab yihiin iyo hadday Soomaali yihiin marka ay ka hadlayaan jiradan coronavirus waxay uga hadlaan si aan cilmiyeysnayn waxay uga hadlaan si ay leeyihiin ilaahay baa dadka ka argoosanaya ilaahay baa dadka laynaya ilaahay baa dadka ku ciqaabaya kelmad caynkaas ay isticmaalayaan cudurkan coronavirus waa cudur virus ka dhalanaya oo bakteeriyadiisa iyo viruskiisa culimadu ay yaqaanaan sidoo u dhashayna ay ogaadeen imika lana galay abxaastii iyo cilmi baaristii laga hortagi lahaa isla markaasina la filayo in sidii jirooyin ka horeeyba looga hortagay in looga hortago laakiin su'aashu waxa weeyaan annagu marka aan nahay dad culimo ah oo akhrisanaysa waxa waajib inagu ah inaan laabla kac la iman oonan ka hadal mawduucyada sidan u khadhaarka ah annaka oo wareysan aqoonyahankii arrintan ku takhasusay quraanku wuxuu inoo sheegay afar arrimood oo muhiima marka wax la baarayo horta wuxuu inagu yiri mas'alad walba markaad baaraysiin dadka ku takhasusay u celiya kadibna iyaka ka qaata iyaka marjica oo reference ah ilaahay wuxuu fas'al bihi khabira arrintaas waxaad weydiisiin khubraduna maaha khubrada dhakhtarada ee dhulkan jooga waa khubrada cilmiga shaybaarka ee baadha kimikada dibbiga ah ee say u abuurmaan fiirisyadu ka shaqeeya maraakiista iyo saantarada iyo meelaha lagu baadho cilmi baadhista ka shaqeeya inaan waxay qoreen waxay ka daba tageen inaan baadhno oon ogaano waa muhiim weyn ka ilaahay wuxuu yidhi fas'al bihi khabiira arrinta labaad ilaahay wuxuu yidhi walaa yunabbi'uka mithlu khabiir haddaad war rabtid inaad ogaatid ninka khabiirka ah sida uu kuugu sheegayo qof kuugu sheegi karaayi ma jiro marka arrinta waa inaad khabiirkii markaad doonatid warkiisana aad rumaysatidood ilaan isagaa waxaan ku ah takhasus u leh waa arrintiisii weeye arrin dhaqaale maaha arrin siyaasadeed maaha arrin diineed maaha arrin fikradeed maaha waa arrin tiknoloji tibbi ah waliba dhakhtarnimo maaha waa dhinaca tiknolojiyadda dhakhtarnimada iyay sii galaysaa marka arrinta labaadina waa arrintaas weeye arrinta saddexaad quraanku wuxuu inoo sheegay marka aan hadlayno inaan ku hadalno cilmi ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu diiday qofku inuu iska hadlo uun isagoonan wixii soo baadhin wa min annaasi man yujaadilu fillahi bigayri cilmin inaan biraa cilmi aan dadka kula doodno ilaahay inooma ogolo subxaanahu wa tacaala marka arrinta waa inaan meeshii aan ka soo qaadanay iyo sidii aan u soo qaadanay iyo wixii aan soo akhrinay kadib markaan fahno inaan dadka u sheegno markaa laa natakallamu biduuni xuja inaan hadallo maaha annagoon argima iyo xujo aan haysan dadka waa la ciqaabayaa waa la laynayaa ilaahay baa noo cadhooday hadallada caynkaasiya maahin waxaa loo baahan yahay waxani waa jiru iminka qofka sheekha ah ee daaciga ah ee mufakirka ah ee ilaahay diintiisa u nool ee uu ku dhacayo cudurka adduunka ugu xun kansar uu ku dhacayo ma ilaahay baa u cadhooday tabaaraka wa tacaala ma ilaahay ma cadho maaha cadho waa marad waa malaadii waa marad waa imtixaan ilaahay baa ugu talagalay basharku inay muslimkuna jiroodo gaalkuna jiroodo ka miskiidka ku jirana jiroodo ka baarka ku jirana uu jiroodo bukoodo idan hadi amraad bada waxa cudurro dhala waana la iska duwaya arrinta afraad ee ugu dambayso oo diinteenu ay noo sheegtay waxa weeye laa khasma dagaalka ma dhexeeyo diintu markay cilmi tahay
iyo cilmigu markuu cilmi yahay labaduba waa cilmi ilaahay diinta islaamka wuxuu ku tilmaamay cilmi oo ilaahay waa ka subhanahu wa ta'ala wama ikhtalafa alladhina utul kitaba utul ilma wa dhala kuwi cilmiga loo keenay waa kitaabkii iyo kuwi kitaabka loo keenay waa cilmigi marka cilmiga iyo kitaabku isma diidaan kasrag iyo kitaab rabbi uu istagaa odayaasheenii hore baastaa dhahay marka kaska marka laga shaqeeyo oo si cilmiga looga shaqeeyo kitaabka rabbina si cilmiga looga shaqeeyo way isweheshadaan marka cudurkani coronavirus walaalayaal waa cudur halis ah sida la sheegay ilaa iyo imika wuxuu dilay 3600 oo qof ayuu xasaadiyay oo ugaarsaday oo dunida ka qaaday wuxuu ku faafay 45 ilaa 49 dal oo dunida ka jira cudurkani wuxuu ka baxay imika wixii loo yaqaanay cudur gaar ah wuxuu noqday cudur guud buu noqday munadamada amba maartay muassasadan caalamiga ah ee loo yaqaano OMS ee ka shaqeysa caafimaadka caalamiga ah ee jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan waxay ka soo qaaday kaarisa inay tahay mushkilad dhakhtarnimo caafimaad oo caam ah waxayna shaaca ka qaaday in looga hortago si uu yahay waba problem culus sidii daacuunada iyo furuqa iyo looga hortagayo mashaakilkii aidiska iyo wixii dunida soo maray taasaa shaaca laga qaaday arrintaas marka halkaa ay socoto su-aashu waxa weeyaan wadannadu waxay u kala baxaan 3 wadan marka ay ka hortagayaan cudurrada wadanno waxay leeyihiin waxa loo yaqaano siyaasad wiqaa'iya waa inaan u fiirsano waxay leeyihiin siyaasad degan oo dalka u taala oo la yiraahdo ka hortaga wixii dalka weerar ku soo haya waxayna hoos imataa waxa loo yaqaano al-amn al-aam security nationalka national security iyo imataa siyaasadda ka hortaga dadka in cudurka laga ilaaliyo gaajada laga ilaaliyo guriga la'aanta laga ilaaliyo maarta dagaalada laga ilaaliyo terroriska iyo argagixisada laga ilaaliyo waxaas oo dhan waxa dhada siyaasad wiqaa'iya dawladaha leh siyaasad wiqaa'iya siyaasad ka hortag waxay dejiyaan waxa la yaqaano istiraatiijiyatu alwiqaa'iya sideen istiraatiijig ma hadee waxa dhacaan sideen la yeeli way u sii taalaa marka dawladahaasi waa dawladaha waaweyn imika Canada oo kale waxa yaala system looga hortagayo cudurkan oo uu sheegay ra'iisul wasaaruhu oo sheegtay wasaaradda caafimaadku ay yiraahdeen gacanta ayaan ku haynaa inuu cudurkaasi fidi karin marka dawladaha noocaas siyaasad wiqaa'iya bay leeyihiin qolo labaad baa jirta oo iyaduna male siyaasad ka hortag laakiin waxay leeyihiin awood ka hortag awood bay leeyihiin awooddaas horey u adeegsan karaan ka hortagina way dejin karaan arrintaas waxaa sameeyey wadano fara badan oo wadanada khariijku ay ka mid yihiin siyaasado u yaalay oo maarta istiraatiijiya ma jirin laakiin maadaama lacag iyo awood ay hayaan si degdeg ah bay u qaateen qaraaraad ka hortag ay cudurkan kaga hortagayaan sida Qatar samaysay Kuwait ay samaysay Imaaraadku imika uu tallaabooyin qaadaya isaga ugu halis badan wadan Sacuudigu uu sameeyo cumradii joojiyay oo waxaas oo dhan ay dhaceen waxa dhacdaa waa ka hortag laakiin u baahan awood qoladaas saddexaad waxa weeyaan waa qolo siyaasad ka hortagna aan lahayn awood ay kaga hortagaana aan lahayn waa Djibouti iyo Soomaaliya oo kale iyo wadanada Afrikaanka siyaasad ka hortagna ma sii taalo oo wixii kalaba lama hayo awood lagaga hortagana ma taalo oo xoog iyo itaal lama hayo bal waxaan idin sheegayaa in uu wadanku furan yahay dibad iyo gudaba inaan la ogeyn dadka u dhimanaya cudurkan iyo hayaa muxuu halku ka yimiday aan la garan karin waxa wax ku hooseeya nalaynaya marka kuwaasina iyo kuna waa qolooyinka sidaas oo kale ah imika waxa la sheegayaa wadano badan waxay sheegeen inta qof u hayo laakiin wali ma hayno Djibouti inay sheegtay inta qof cudurkaasi hayo ma baari kartaba waxa u baarisana si sax ma aha ninka Jaynaha dhintay ee Djibouti ay qaadeen ay meesha u qaadeen uu sheegay mudane Daahir Axmed Faarax ومانتو كلمته وكهلي كاسكو كاس وهلي وشاغي لما شيغين wuxuu ku dhintay maxaa dilay dadkii qadaya hayeen maxaa laga yeelay halkii la diyaariyay haduu cudurkaasi dhaco waxa soo dhan lama hayo Soomaaliyana kaba darabo marka waxa weeyaan waxaan meesha ka hadlayna waxa weeyaan
coronavirus wax ka hooseeya iyo dadka laayay hadduu isagu yimaado meelaha uu ka noqonayo kaarisa waxay rabtaa meelaha uu ka noqonayo burbur iyo baaba waxaa ka mid ah wadanadeena haddaba sidaa daraaddeed waxaa la rabaa diinteennu waxayna bartay laba tallaabo oo la qaado marka cudur laga hortagayo labadii tallaabo maanta waa lagu dhaqmo laakiin nabigeena uu sheegay calayhi salaatu wasalaam tallaabada koowaad wuxuu yidhi rasuulku firra min almajduumi ka firaarika min alasadi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi rasuulku waxaad uga baxsataa cudurka judaamka la yidhaahdo oo laysqabadsiiyo oo faraha googooya sidaad uga baxsan lahayd libaax hadduu ku cunayo oo kugu soo dhaqaaqo waa inaad uga baxsatid sidaad uga baxsan lahayd baad cudurkana uga baxsanaysaa xadiiska waxaa la yidhi waxaa lagu qaydaa xadiis kaluu nebigu yidhi laa cadwaa la isma qabadsiiyo cudur markay saxaabadu weydiiyeenna wuxuu yidhi faman acda alawala kii ugu horreeyey cudurka iyaa qabansiiyey markuu cudurku dhalanayay iyaa hortaba keenay su-aashaas bay dad fara badan baa qaatay fikradda ah cudur lama kala qaada ninkuu ilaahay u qoray unbaa qaadaya rasuulku taasuu saxayaa wuxuu leeyay cudurka asalkiisa ilaahay baa abuura ibtilaa buu abuuraa itixaan uu soo dhaadhiciyaa laakiin waxaa muhiima inaad garatid inaa cudurka laga baxsan karo oo wiqaa'iya laga hortagi karo ka hortagii nebigu muxuu inoo sameeyey wuxuu ihi ka baxsan cudurka maxay ka dhataen cudurka meesha cudurka lagu sheego ha tegin waa kow labo meesha cudurka uu ku fidi karo ha tegin isagana waxaa laga yaaba meelaha laisku imanayo iminka wadannada qaar waxay dhahdeen 1,000 qofi meesha isku imanayso inaad tegina xafladihii joojiya meelahaas oo kale culummada qaar waxay ka fikirayaan wadannada uu ku fido inay dhahdaan salaada jumcaha ha tegina lianna boqolaal iyo kumaafun baa isku imanaysa fatway ka soo saarayaan lianna waxaa la doonayaa waxaa la dhahdo ka hortag saddu dariica in laga hortago mushkilad okay diinteen waa cajiib weye marka waxay ku leedahay rasuulka kule waxa sallam ka baxso cudurka judaamka cudur kasti oo la kala qaadi karaa ka mid a sidaad uga baxsan karaysay libaaxa nin libaax afka u gali kara ma jiro cudurna ha doonan meesha u yaalla ha tegin hana agmari buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam arrinta koowaad waa taa weye xadiiskaas waxay ka dhigan tahay shakhsiyadaada adiga ka muslin ah waxaa lagu saaray mas-uuliyad responsibility baa lagu saaray adaa naftaada ka mas-uula lianna qur'aanka waxaa ku qoran walaa tulquu biaydiikum ila atahlukati naftiinna ha ku tuurina meesha ay ku dhimanayso aayad kale wuxuu ilahay ku yidhi walaa taqtuluu anfusakum inahu kaana bikum raxiima nafihiina ha diiliina buu ilahay yidhi tabaaraka watacaala ilaahay uu niin naxariis badan yahay idan qofka muslimka ah naftiisa bacdallaahi ilaahay baa ku siiyey waxaad mas-uul ka tahay inaad ilaalisid caafimaadkeega naftaada inaad ilaalisid kobiceega waxaas oo dhan waa waajib qofka muslimka ah saaran weeye idan ta koowaad muxuu nebiguna baray ka baxso dhakhtaradu iminka waxay noo sheegeen sidee baa looga baxsan karayaa cudurka coronavirus kayfa nastadiic an nataharaba minhu sideen uga baxsan karnaa waxay noo sheegeen tallaabooyin dhowr ah waxaa ka mid a inuu qofku sankiisa iyo afkiisa xidho markuu meelo caama tagayo waa ka baxsanaysaa waa sidii libaax looga baxsanayay ila libaax kusoo booday maaha waa libaax yaroo socda hinta shaqaa buu soo raacaya qufcuu soo raacaya waa wax yaroo maaragtay yaro khafiifa oon la arkayn sanku kaa galaya idan 2 mitirna waa lagu kala qaadi karaya ilaa imika inta dhakhtaradu sheegeen waa tibbigii waxay sheegeen marka maxaa adi lagaa inaad xidhatid intii wax kaaga soo galayeen oo dhan markaad tegaysid meelaha buuqa oo ay ka mid tahay meelaha jiimamka isboorka lagu ciyaaro 2 meelaha maaragtay lagu cibaadaysto ee waaweyn 3 meelaha suuqaqa ah ee lagu kala gadanayo la iibsanayo 4 basaska lala socdo 5 maaragtay meelaha la farfadhiyo oo sinimooyada ruwaayadaha dadka galayta waxaasoo dhan waxaa looga baahan yahay inay arrintaas ilaashadaan arrinta labaad ee dhakhtaradu sheegeen waxa weeyaan gacmahaaga ilaali waxay ka dhan tahay dad baa jira bahalkii qaba waxay korayaan maxaan ku dhahdaa mascadkii maaragtay asaseerkii bay korayaan
baratay guryaha dhaadheer loo korayay meeshii buu taabanayaa san buu u taabanaya adna waa ka daba taabanaysaa waad ka qaadi kartaa 2 waa salaamaysaa 3 waxa weeyaan wax u taataabtay baad taataaban karaysaa buugaan uu qaaday baad qaadi karaysaa waxaas oo dhan maxaa markaa lagu amray inaanad gacmahaaga meelaha ay wax ka galaan aanad tagtagin inta badan ilaa aad meydhid waxay dhahdeen qofku gacmihiisa ha meydho 20 second ilaa iyo 30 second nus daqiiqo gacmihiisa ha meydho hana ku meydho saabuun amba ha ku meydho waxyaalo loogu talagalay in gacmaha lagu meydho ama biyo caadiyaba si fiican gacmihiisa ha ugu meydho taana diinteenu wayna bartay inaan meydhno gacmihiina dhowr goor waxay kale inoo sheegeen in la isticmaalo biyo kulul oo milix leh la luqluqdo sanka la iska shubi karo dhulka lagu soo qasbayn karo lagu safayn karo ayay noo sheegeen markaas arrimahaas ay noo sheegeen waxa weeyaan waa mas'uuliyadda qofka ka saaran naftiisa oo ah inuunan cudurka doonan uu naftiisa ka ilaaliyo weliba gaar ahaan waxaan u sheegayaa dadka dhulkeenna ku nool ee aynan u maqnayn dowladna u maqnayn wasaaradna u maqnayn siyaasa wiqaa'iya siyaasad ka hortagna ayna jirin quwa wiqaa'iya xoog wax ka hortagana aan haysan taasna maaragtay waana arrinta labaad waxa weeyaan waxaa la waaninayaa waxa uu nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam hadduu waddan ku dhaco cudur dad fida in dadka uu ku dhacay meesha lagu xidho sidaa iminka jayruhu sameeyeen waddano badanna ay sameeyeen dadka uu cudurkaasi ku dhaco in lagu sameeyo xijrun sixiyun waxa loo bixiyey in la xidho oo si caafimaad ahaan meel loogu xidho dadku xadiiska nabiga may fahmi jirin maantay fahmeen in badan nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam hadduu ku dhaco daacuunku waddan ood dhex fadhidaan ha ka dhoofina haddaad dibadda ka joogtaanna ha tegina eeg waddankii uu ku dhacay daacuunku dadka uu daacuunku ku dhaxay dhexda iyaka waa in la xidho halkaa lagu daweeyo oo laga hortago kuwa kaleeta ee dibadda ka joogana inay yimaadiin maaha iyakuna inay baxaan maaha sida ayaa yidhi nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam goormuu yidhi 1400 sano ka hor buu waa markii cumar binu khataab uu maqlay daacuunkii la oran jiray cimwaas caloorshubankii daacuunkii kululaa ee ka dhacay shaam ee laayay dad fara badan oo 18 kun oo qof lagu qadaray oo saxaabo fara badan ay ku dhinteen iyaa markaa cumar binu khataab isagoo amiir almu'miniin ayaa la soo gaarsiiyey warka hoggaan buu yahay wuxuu yidhi waan baxayaa waxaan tagayaa waddanka uu ka dhacay si aan xaaladiisa uga war keeno saxaabadii buu la tashaday markuu madiina duleedkeega uu joogo waxay ku dhaheen saxaabadu yaa cumar ilaa ayn hagee tagaysaa wuxuu yidhi waxaan tagayaa waddanka shaam maxaa ka doonaysaa waxaasaa ka dhacay waxay ku yidhaahdeen markaa saxaabadii laba u kala baxeen qaar dhaha ha tegin ilaa uu tashanayaa iyo qaar dhahda tag kuwii ha tagi yidhi waxay yidhahdeen mas-uul baa tee tag laakiin kuwii ha tagi yidhi xadiis ba u keeneen xadiiska iminkaan akrinino iyay keeneen cumar binu khataab waxaa ka mid ahaa inuu yahay nin ummaddana u naxariista islamarkaasina diintu marka nas loo sheego waqaaf buu ahaa uu soo laabay markaa waxay ka yidhaahdeen afiraaran min qadarillaahi yaa cumar ma qadarkii ilaahay baad ka baxsatay cumarow wuxuu cumar ku jawaabay kelmad taariikhda gashay oo ka mida kelimaadkiisa taariikhda galay ee loo xafidsan yahay inuu yahay min acdami rijaali lislaam fi taariikh bal min acdami rijaali lbashar bini aadamka dadka ugu culus uu yahay wuxuu yidhi radia allahu canhu nacam nafiru min qadar illaah ilaa qadar illaah waxaan ka baxsanaynaa run ahaan qadarka ilaahay baa cudurka abuuray waxaan ku baxsanaynaa qadarka ilaahay caafimaadkana ayaa abuuray allah baa abuuray tabaraka wataala bibasaata si caadiya ayuu ugu jawaabay bicaqliya cilmiya caqli saynis ah scientific ayuu ku jawaabay wixiina uu qanciyey dadkii radia allahu tacaala canhum marka labada arrimood midi waa maxay waa mas-uuliyadda dowladaha saaran midna waa mas'uuliyadda qofka saaran diinteenu way kala saaraysaa masaa'isha sida wadaadadan masaakiinta ah oo madaakhilada iyo jaamiyiinta la dhahdee ee jaahiliinta ee dadka indhaha qabanaya ma aha diinteenu dadka indhaha u furaysaa waxay ku leedahay waryaa naftaada adaa mas-uulka ah dowladduna mas-uul bay ka tahay dowladda shaqadeediina waa loo diray waxaa yidhi dadka meel ku xidh dawee dadka kaleetana ka celi inay dadka is arkaan waa mas-uuliyaddii dowladda waa wiqaa'iyadii waa kahortagii waa la dagaalankii oo isku jira waa alwiqaaya walmucaalaja ilaan wixii uu dhacay waana laga hortagaya waana la daweynayaa raadka ka dhalanayana waa la yaraynayaa hadiya siyaasa arrinta labaad ay samaynayaan dowladuhu waa taas arrinta labaad ee qofku samayn wax weeyaan waa arrinta ah inuu isaguna isdhowro
oo uu responsibilitygiisa uu qaato oo uu dadkana ka ilaaliyo isaguna iska ilaaliyo weeyaan marka problemka weyn ay nahaystay waxa way walaalayaal annagu haddaan nahay dadka dhulka aan ka hadlayo degan dee uma filayo inay wax ka dhici doonaan dowladuhu inay sameeyaan itaalna uma hayaan siyaasadna ma hayaan waxay wada sugayaan inay dowladaha waaweyn lacag soo diraan oo jimciyadda qurumaha ka dhaxaysan ay tiraahdo wadannadaasi halis bay ku jiraan ha loo gurmado markaa bay odhanayaan meelaha baan diyaarinaynaa halkaan dad ku xabeynaa lacag baan u baahannahay way ku shaqaystaan systemkan laakiin adigu ka muslim sidaa cudurkan iskaga ilaali gabdho badan inamo badan baa soo weydiiyey sidee baan cudurkan dadkeenna uga ilaanaa waxay u baahan tahay saddexda tallaabo in la qaado awalan suma ثانيا ثم ثالثا اولا waa maxay kow waa in sabiilu alwacyi walmacrifa dadka waa in madaxooga kor loo qaado waa in indhaha loo furo waa in la tuso halistu inta ay leeg tahay meeshay ka iman karayso walitastabiina sabiilu lmujrimiin dawyadu waa inay caddaadaan taasi waa tukubaad weeye alwacyi ثانيا تغيير السلوك dhaqankeena waa inaan bedilno waa inaan garanno naxnu mas'uuluun amaama allah nafaheenna taana waa inaan qaadano saabaan ka horta karnaa ثالثا waa inaan sanka kaga tolno dowladaheennu inay qaadaan tallaabooyinka ay qaadi karaan si ay cudurkan uga hortagaan oo ay ugu horeyso halkaas bixitaanka iyo galitaanka inkastoo meelaheena laga soo galayo iyo meelaheena laga baxayo aynan ahayn meelo ta'miin ah oo asraans ku jirta oo maaragtay oo la ilaalin kara aynan ahayn